السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد السلام أصحابتي خيارة شرفت اللي ملك سو كنوشيهين أصحابتي يقحرنكم ويقحرنين أمد الصوماليات ملك سو كنوشين. وعد السلامي سلام كبعد وحا إن أنيق فرحد إيه إن على قياس كرنين مدحوينها شيدي كوي هور إيه kan hadda joogo oo iskarab taagan oo ma aragtay isku ballan qaaday macnaha inay iscaawin doonaan inay madaxweynaha garab siin doonaan la shaqeyn doonaan wada shaqeyn meeshaas ka dhici doonto ilaaha idinkiis maxaa la yiraahdaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. I'm not a political person, kama helo waxyaalaha politicalka, laakiin maalinta ay tahay happy moment I like to inaan ka qayb qaato farxadda in madaxweynayaasheedii ay isla shaqeynayaan. taasna waxay tusaysaa dhammaan nabad iyo nolol asxaabta nabad iyo nolol in ay ma aragtay maadaama farmaajo uu la shaqeynayo xasan sheekh wadankuna wadankeeni yahay in ma aragtay la iswada garab istaago wixii qaldamana la saxo. Okay, marka that's really unbelievable. waa aad iyo aad wax wanaagsan waxa la yaab leh oo aan meeshan ku arkay madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta oo sidii gabar yar oo careysan salaantii la garab maray Sheekh Xasan iyo Farmaajo oo maaragtay Sheekh Xasan iyo Salaami dadkii kale la garab galay meelna kaligiisa fadhiyo sidii gabar yar oo ma aragtay carooto wax loo diiday indhaha ka mirigmirigsiinaya. I'm sorry waa ka xumahay. ciidamada hore u soo qaatay wuxuu ciidamo hore ku soo qaatay in ma aragtay Soomaalida xurguf kala dhaxaysay macnaha badayadii aan ku dirirnay oo wax laga siiyay maxaa ku soo haray in ma aragtay qaadkii iyo qurunkii laga joojiyay xaduudaha iyaga laga xiray oo Farmaajo uu totally saaray restriction dakhligoodii hoos u dhacay oo hoos u dhigay oo magac xumo xitaa ku riday oo dadkiisii ay naceen. saas awgeed ayuu Farmaajo arki waayay salaami waayay macnaha والله wax laga yaqyaqsado sameeyay nin weyn oo wadan dhan mas'uul ka ah oo dad dhan horkacaya oo sidaas u dhaqmaya ama ma aragtay ku fakaraya waa caadi maaha. hadana ciidamo hore u soo kaxaystay wuxuu noqday dani oo kale tuu noqday iyo maxaa la dhihi jiray kii Kismaayo oo noqday sidii ay ciidamada u soo kaxaysanayeen oo dhahayeen xamar iskuma hubno oo anagu ciidamada yadaan la tagayna ayuu isaguna wuxuu soo qaatay ciidamadiisii oo kuwa qaasatan kuwa shiishka ku dheereeyo iyo waxyaalahaas oo Ingiriiska loogu soo tababaray ayuu soo hore u soo kaxaystay. wasiir wadanka Soomaaliya wadan nabad taal ma ahane maxaa la yiraahdaa isku difaacid hadii lagu soo duulo Soomaali ku soo duusho oo laga qabanaa kooban looga siin lahaa yaxfalay waxaaneed Soomaali ma doonaysa waxaan inuu wadankooda ku dhinto ama wax ku soo gaaraan. Soomaalidu ma yaqaan Soomaalidu waa dad iska qalbi furan iska niyad wanaagsan macnaha soo dhaweentana ku wanaagsan dadka u yimaadana qadariya ee aan ku xadgudbinin macnaha taas ma yaqaan waxani waa xayawaan waaye. على كل حال معناها سيدي وفلاي سكة وناكسن أي لو صو دوي لو صو شرفي وحويان welcome وسنفلين هذا وحو قارو يراد أو حدودها وافرايا ديارها وافرايا ديارديسة حدوديسة وحو فلايا أو بالصومالية حرتي أصدق دنعيس وكفرنا الله هيد سو حقرتين أنا جس الله يعني you know I don't want to hadalkiisa inaan soo qaato cali wasqaanka. By the way waa aragtaa Farmaajona markii uu hadlayay oo maxaa la yiraahdaa uu ballanta u qaaday garab saaciid waxa leh qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay laakiin waxaan ka baranay hore isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeenu aan ku xoojinayno
teeda kale also farmaajo wuxuu ku dhaga hadlay maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha Kenya iyo maxaa la yidhahdaa madaxweynaha Djibouti maxaa la yidhahdaa Ismaaciil Cumar Geele whatever his name it is wuu ku dhaga hadlo oo wuxuu yiri wadamo waxaa jira aan doorasho ka dhicin uu yiri wadan waxaa jira doorashaba aysan ka dhicinin oo waxaa doorashadaba laga aqoonin sababtoo Ismaaciil Cumar Geele wuu iska saareeyaa meesha kama degta in la saaraaba u maleysaa qofkii madaxa soo taago oo kula tartamana qoortu ka geenaya xabsiguna u dheeranaya Uhuru Kenyatta ku soo haray meeshaas asaguna dictator kaleeto yahay oo waxa waaye doorasho haday ka dhacdo bangada la isku garaacayo dadka dawladaha qaar bangada la isku garaacayo doorashadina waxa weeyaan mid baaba aan ku badinaaba iska qaadanayo Soomaaliya waa lagu kala badiyaa xaqiiqada marka lagu kala badiyo oo nambarada isdheeraadaan ninkii ku badiyo congratulations Allah no dagaal no rabsho no bo you may like that one madaxweynaha adiga ka heshid madaxweynaha kalena aadan ka helinin tog halkaas isaga dhamaanaya laakiin anaga waxa noo wanaagsan oo muhiimadno in madaxweynayaashii maantay ay isla shaqeynayaan isgarab taagan yihiin taas alla ma hadaysa weeye midka tusaysan weeyaan inaan isla wada shaqeyno oo isku wada garab istaagno oo madaxweynaha la shaqeyno waqtigiisana aan siino hadda wadanka waxaa tusaale ah markaan dib u milicsano oo isku dhiibka aan sheegay ee dawladihii kala dambeeyay waxay dalka dawladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo ayadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniga waxaan u mahadcelinayaa dawladaha lagu garab siiyey dawlad dhiskeena sida dawladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin ADMIS horeyna loogu yaqaanay AMISOM marna ma ilaawi doono ciidamada AMISOM ama ADMIS ee naftooda u huray xubnahooda qaaliga ah ku waayay difaaca dalka waxaan u mahadcelinaynaa dawladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada loo dhisa in Soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto waxa kale oo mahad iska leh shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dawlad kasta oo timaada muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dawladnimada ilaaliyo sumcadda dawladdeena iyo madaxdeena oo weliba aan ugu duceyno inuu Ilaahay u fuudeeyo waxa kale oo muhiim ah inaan u mahadcelino ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dawladnimada una huray naftooda Allah u naxariisto inta naftooda ku wayday difaaca dalkooda madaxweyne waa ku garab taaganahay waana kula shaqeynaynaa wixii tala aad na weydiisatana diyaar ayaan kula nahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda Soomaaliyeed u hari doona adigana legacy ku noqon doonto ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed waxaan mar kale ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dawladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هبا إن أخو يرو مدحويني شيخ شريف إنه يصوجن قريو وأنا ما أدعي لي مدحويني هوري مدحويني فرماجو وحان جعلها المركن مناسبة أنه قنانة كمرينا إن أنسود دوينو مدحوينها تبنات الصومالية مداني حسن شيخ محمود farmaajo wuu la hadlay ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dibad joogtay in ay fursad siiyaan madaxweynaha cusub
sheekh xasan maxaa la yiraahdaa because dowlad curduna oo hadda dhalatay oo u baahan taakulayn iyo gacan qabasho uma baahna in laga hor yimaado so waa in la garab istaagaa kaabayaal jamaahuurta mayaa la yiraahdaa nabad iyo nolol aad baan ugu faraxsanahay inay iska soo garab istaagaan really because wadankaana deeqa dalkaa naga badan you know dalkaygana wax walba qabo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يا مرويين ولالها الصوماليات رئيس الوزراء يا حكومة حلقارسينته مدنياش اللبدا أقل برلمانك مدحدا يا وكيلدا أن ولالها النهي يا صاحبدا النهي كسو قيب قلي مناسبة مدحوينياشي يا رئيس الوزراء ياشي هوري دلك الصومالية مدحوينياشا الدولة قبليدية يقدميها قبل كبنادر مرتي شرفتا كلا الدول اعتمادا ماشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هدودن وحاد سقناتي الله سبحانه وتعالى كدب وحان هاد علينا وكيلنا شعب كصوماليات mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya kuma sii dheeraanayno anigu waa isaga baxaya intaas isaga baxaya maxaa la yiraahdaa meel kasta ayaa laga soo galiyay Soomaaliya marka aniga muhiimadeedu waxa ay ahayd inay labadii madaxweyne oo horeeto iyo madaxweyne Sheekh Xasan ay wada shaqeyn doonaan wadankana waxa weeyaan wixii talo iyo tusaale haddii uga baxdo ay siin doonaan maxaa la yiraahdaa waa nin hore madaxweyne u soo noqday oo waxa weeyaan isagoo qabiica ka tagay haddana jecel ama doonaya inuu dhamaystiro marka we will see what happens insha Allah khayr ayaan wax walba kaga rajaynaynaa hopefully warshadii Soomaaliya inuu kaxiyo hopefully shaqo la'aanta dhalinyarada heesa hopefully jaamacadii inay free ka soo noqdaan iskuuladii la soo celiyo maxaa la yiraahdaa kanaaladii la furo ee wabiyaashii wax walba sonkorti mareeray jawhar I hope we have a hope insha Allah qabyada dhiman inta wadanka ka dhiman inuu dhamaystiro ciidamada lacagahooda ciidamada Soomaaliya increase ku sameeyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha ku fududeeyo midda kale aan ku darayna waxa weeye rabshadaha ka dhacay Somaliland aan ma soo qaadanin mana doonayn inaan soo qaato laakiin waxaan leeyahay intii dibka iyo dhaawaca soo gaareen waxa weeyaan iyo inta dhakhtarka taalaba ilaahay ha caafiyo insha Allah waxaan leeyahay dawladana insha Allah in ay fasaxdo free mudaharaadka qofka hadduu doonayo inuu mudaharaado waxa weeyaan in la ogolaado dadka ay mudaharaadaan maxaa la yiraahdaa sababtoo dadku waxa weeyaan wadankay u dhasheen dalka iyaga iska leh way ka caban karaan waxaysan doonayn way ka hadli karaan waxa aysan doonaynin marka free of speech waxa la yiraahdo in loo sameeyo dadkaas gabdhaha caloosha la haraantida la kala dhacay na waxaan leeyahay ilaahay calooshooda ha u caafiyo ilmo galoonkooda iyo everything ma fiicna gabdhaha saas loo haraantinayo ma doonayo inaan soo geliyo laakiin waxaan leeyahay correction in la saxo qaladaadkii dhacay ee Hargeysa ka dhacay in la saxo shalayto I hope ayaan taas u rajeynaya ummaduna dee waxa weeyaan aysan xumaanta raadinayo dhinaca wanaaga ay raadiyaan ciidamaduna dee gabdhuhu waa gabdhahoodii wiilashu waa wiilashoodii dadka mudaharaadaya waa dadkoodii inay u turaan ayaan ilaahay ka rajeynayaa intaasaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh